Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada kanaalka YouTube-ka Faa'iidos Channel. Maanta waxaan inoo wadaa sheeko xariiro. Sheeko xariiradani waa sheeko aniga waxa weeye naftayda aan aad uga helay, aanan ilaawin ilaa iyo markii aan sheekadan akhristay. Sheekadani waxaan akhristay aniga oo dhiganaya kalaaska 2 ama 3 ee dugsiga hoose. Waa sheekadii iigu horreysay ee aan akhriyo markaan bartay sida wax loo akhristo. Waalidkay ayaa ii iibiyey buug. Buugga ayayna ku qornayd sheeko xariirto. Sheekadaa ma aanan ilaawin marnaba, waayo waxay ahayd furihii akhriska noloshayda. Markii ugu horreysay ee aan wax akhriyo ayay ahayd. Sidaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago. Inkastay sheekadu nuxur intaa ka badan xambaarsan tahay, waqtiga aan sheekada akhristayna waa waqtigii Soomaaliya ay dowladdu jirtay oo aan burburku dhicin. U malayn maayo buugta noocaasa in iminka la helayo, waayo dee wax kasta oo hantiya oo aynu lahayn waxay raaceen colaadii sokeeye. Wax dhaxala oo inoo hadhayna wax hadda dib loo yegleelo maahaane inayan jirin ayaan u malaynayaa. Gayiga waa Soomaaliya meesha aan sheekada ku akhristay. Waqtigu waa waqti Soomaaliya ay nabad ahayd oo aan colaad iyo waxba aanay jirinin. Sheekadu sidan ayay ku bilaabmaysay. Beri baa waxaa jiray nin dadqala. Ninka dadqalka ah wuxuu lahaa 4 carruur ah. Maalintii ninka dadqalka ahi waa nin xaragooda. Wuxuu xidhaa 2 go' oo cadcad sidii dhaqanka Soomaaliya ahayd berigii hore. Maalintii waa uu quraab tagaa oo waxa uu socdaa masaafo dheer inta uu wax ka helayo. Carruurtiisa waxa uu saaraa geed dheer dhakadii oo uu dhahaa kora siduu uga ilaaliyo habar dugaag. Maalin maalmaha ka mida ninkii wuxuu socdaba waxa uu la kulmay gabadh meel adhi la joogta. Kadibna gabadhii salaan. Isbarasho kadib gabadhii mudduu ku soo noqnoqonayay. Waa la sheekaystay. Sheeko wadaag baa la noqday. Markii sheeko la wadaag noqday, gabadhu ma oga ninkani inuu yahay nin dadqala, waayo ninku waa nin ayan ka muuqan wax dadqalnimo ah, waayo maalintii waxa uu xidhan yahay dhar cadcad oo aad u nadiifa. Waana nin aad joog iyo jamaal u leh. Gabadhii ninkii waa ay ka heshay. Kadibna ninkii isagu ileen dabin buu la maangan yahaye gabadhii wuxuu ku soo xerogeliyey inuu yahay guurdoon. Muddo la sheekaysay. Muddo gabadhii ku soo noqoy iyo meeshay adhiga ku raacaysay. Waqtigu waa waqti barwaaqo ah oo waxa weeye jiilaal jimcoon baa lagu jiraa. Gabadhii sidii caadada ahayd iyo ninkii waxaa lagu heshiiyey in la isguursado. Waxaana lagu ballamay in la isla baxsado oo la isla cararo. Kadib gabadhii ninkii go'aankii way ku raacday, sidii ayaana lagu heshiiyey. Maalintii la heshiiyey markii ay soo dhowaatay, gabadhii ninkii ayay la baxsatay oo raacday. Dadqalka ahaa wax la sii socdaba ninku waxa uu geeyey gabadhii geedkii ay carruurtiisu saarnayd. Carruurtii ayaa markay aragtay aabbahood faraxday oo naag wada. Kadibna geedkii ayay ka soo degeen oo way ka soo horyaaceen iyaga oo sita faradad. Naagtii talaa ku caddaatay ileen waa warmooge. Waa naag guur u socotay laakiin dabin kale ayaa lala damacsan yahay. Naagtii talaa ku caddaatay meelay wax ka qabatana ma laha. Ninkii naagtii geedkii ayuu 2 dible ugu xidhxidhay. Kadibna carruurtii ayuu wuxuu ku yidhi, aabe dab inoo sii shida aan naagtan ku dubanno. Aniguna waxaan inoo doonayaa biyo. Carruurtii sidii aabbahood kula ballamay dabkii ayay oogeen oo xaabay dooneen. Odaygiina biyo ayuu u doonay meel xoogaa masaafaa u jirta. Markii dabkii caddaaday oo dabkii uu si fiican u shidmay, ileen carruuri waa laga caqli badiyaa mar walbe ayay naagtii waxay ku tidhi, carruurey inta aabbihiin maqan yahay
aadi cunteene xadhigga iga furfura oo aad dabkan hulcaya igu rideene. Carruurtiina run bay mooday carruurtiina sidii bay yeeshay oo naagtii bay geedkii ka furfureen. Ileen waa naag dabin damacsan oo siday u baxsato doonaysee. Afartii carruur ahaaba intay qabatay ayay dabkii ku dhex tuurtay. Kadibna ninkii ayaa soo noqday isagoo biyihii wada markuu hal cabbaara maqnaa. Wuxuu u yimi carruurtiisii oo dabkii ku dhex huruufaaday. Kadibna wuxuu yidhi ileen waa dad qale, waa dhallaankaygiiyo dhiila saan u gashaye iska dhunkululuxso. Halkii ayuu carruurtii ood huruufaaday dul fadhiistay oo cunay. Sheekadii sidaas ayay ku dhammaatay.